السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي سيتهين في عنتهين وحارجينا هنا في عنتهين أنا جالس دوك الوا في عنها الحمد لله على السود وهذا ما أنت ماشي روتين كنا قدر كانوا كبلابنا إلا يوحاس لجوجنا مقرب بإذن الله هل كان وحن كسو شبتي سليدير يا بس شعت كدي ماشي أنا وحن كسو درسنا دانيو ده وحاوي مدي فريج كوجرتي waan soo shiiday waxaan isku soo shiiday daaniyo iyo nacnaac iyo toon iyo sinjibiil iyo biyo yar iyo saliid isku soo shiiday kadib caagan haafka ah iyo caag kale oo buuxa ii noqotay fridge-ka ku jira marka midkaan hor isticmaaleyna kadib marka inta isku soo karto waxa kale oo ku soo dareena mayonnaise-kan oo laga sameeyay filfil marka kuma badinayo dhadhan fiican ay leedahay in yaraan ku daraaya si dhadhan isku dheelitiran ugu sameeyso kadib marka inta isku soo darno si fiican isugu soo walaaqeynaa ilaa ay si fiican isku soo dhaxgasho basashi iyo wixii oo dhan saliidan waa ku soo yareeyay hadda waaba kana markaan wixii isku soo dar saliida ma muuqatabo ani ma jecel cuntada in saliid yar ka muuqato xataa kadib meesha waxaan ku soo dareynaa babriko waxa kale oo ku soo dareynaa turmeric ama huruud waxa kale oo ku soo dareynaa yaanyo shiishid wax yariis waxa kale oo ku soo dareynaa soya sauce intaas hadana waxaan sameyneynaa si fiican isku soo dhaxgelineynaa biidnillah waa kana hadda anagoo si qurux badan isku soo dhaxgelineyna sidaas isugu soo walaaqeynaa kadib markii hadda intaan diyaar noqoto maxaa kale oo ku soo dareynaa marka arka hadda intaan si fiican isku soo dhaxgashay baa waxa soo qaadaneynaa cream coconut cream kana soo qaadaneynaa halkaas xaba soo isticmaaleynaa ku soo daray si fiican isku soo dhaxgelinaya markay si fiican isku soo dhaxgasho baan arkeena insha Allah wax kala ku darsado marka hore waxa la rabaa inay is dhaxgasho ay si qurux badan ku soo baxdo dabka u yara gaabiyay kadib waa kana hadda sidan creamiga ah ku soo baxdaan ku dhahay kaaliska araga carafta laga ma sheekeyn karo markay hadda sidan diyaar u noqoto wax yar wali dabka u deelina inay soo yara falfashaan rabaa hadda waa kana waa diyaar markay san diyaar u noqoto waxa soo qaadanayna malaygan hadayaan soo dubay adiga 2 saacadood camal wuxuu la yaalay daaniyadaas hadda shiidneed iyo fish masala iyo soya sauce iyo aduun oo dhan aan ku soo daray markay 2 saacadood meel yaaleen soo dubay marka waa kana hadda creamkeeni meeshan aan ku soo diyaarsano sauce-kii aan tartiib ugu soo darnay maadaama malaygu uu karsan yahay aad u qadqaadid inuu kala jajabaa la rabaa inuu kala jajabaa laga yaabaa inuu kala jajabana lama rabo waxa la rabaa sidaas inuu perfect u ahaado marka waa kana hadda anigoo bitartiib rabo inaa sooska asaga dhan wada gaarsiiyo asaga oo iga jabin marka sidaan aan ku soo wadeynaa digaagu malaygu karsan yahay digaag maan dhahay malaygu karsan yahay sooskan uu diyaarsan yahay waxa la rabaa in inta isku huurisid isku dabooshid oo si fiican isku dhaxgalo hadhow marka saas u goosato malayga uu sooskaas kaaga soo dhaxdhamaan rabaa oo coconut cream-ka marka waa kana hadda waa kana uu soo falfalay marka cabaar joogaba gees baan kor u qaadaya waxaan rabaa inaan fiiriyo inuu is dhaxgalay iyo in kala iyo inuu dhinac banaan yahay maasha Allah caraftiisa waxaan ku dhahay laga ma sheekeyn karo hal soo tijaabiyo afaarahan wax kasto baad ku cuni kartaa wuxuu diidaya malahan marka hadda waa kana waa diyaar waxaan sameynayaa dabkan wax yar u soo gaabinayaa maxaan dhahaa waan soo daboolayaa kadib baa isku soo noqoneynaa marka maxaan dhahayo waa mahadsantihiin intii hore ila joogday intii kalena waxaan leeyahay la igu soo biiro inta cusub ay igu soo biirtan waxaan leeyahay soo dhawaada waa mahadsantihiin sida quruxda badan ah igu soo biirteen anigana waxay ii tahay dhiirigelin marka hadda markuu sidaan diyaar u yahay maxaan sameyneynaa hadda markuu sidaan diyaar u yahay meeshaan waxaan isku soo jarjaranayaa basal baar iyo daaniyo oo yariis u soo jarjaray korkaan uga sharaxaya caraf yarna way siinaysaa markii cuntada asaas u fiirsan cunto qurxan waayaba adooba cunin bay indhaha ka deeqaysaa cuntada waxaa la rabaa adoo wili caloosha geenin inay indhaha ka deeqdo marka maasha Allah sidaani ku soo baxday hadda dabka uu soo damiyay waxaan rabaa inaan isla aragno sida quruxda badan ay ku soo baxday maasha Allah bariis cad ku cuni kartaa ceesh ku cuni kartaa rooti ku cuni kartaa wuxuu diiday malahan marka waa kana hadda anigoo maxaan dhahayo soo qaaday mid baan soo kala jabiyay inaan kaamirada ku soo dhaweeyo idin tusaan rabaa laakiin wuu iga dhacayaa anoo wali idin tusaayo dhulku wab ku dheh inkastoo saxanka igu dhace sidaan ku soo baxaan ku dhahay saas isku la dhacaama asaga dhan laga ma sheekeyn karo marka hala soo tijaabiyo war ha laga keeno
maalin kasta bariis iyo baasti hilib arle lama cuni karo iyo malaay saliid le lagu shiilay marbo qaab ha loo bedelaa la dhahaa. kadib waa kana hadda meeshaan aan bariiskan biyo leen kusoo kariyay saliid yar iyo heel iyo waxaas leen dabka ku daray biyaha ku daray markuu soo falfalna bariiskaygan ku darsaday. waa kana hadda bariiskeena sidaan furfurku kusoo baxay, malaaygeena waa kana sidaan asagana kusoo baxay. qadadeena waxaan ku dhahay maasha Allah ay isku dheelitirneed. kadib meeshaana hadda waxaan kusoo diyaarsanaynaa cabitaankeeni. hadda waxaa saxanka shish ku jira waa avocado iyo qaro iyo cambo. wuxuu saas ugu egyahay fridge ku jiray, barafkan kasoo bixiyay laakiin wuu soo dhalaalay. hadda meeshaana carrot, beetroot, qajaar iyo passion. cabitaankan inaba caadi ma ahan. aniga sonkor la'aan aan ku cabaa laakiin ilmaha ma yeelayaan sonkor la'aan, marka wax yar oo sonkor loogu daraa caadi ma ahan aan ku dhahay, lagama sheekeyn karo. asagana hala soo tijaabiyo. maalmihii ugu horeeyay iga diideen laakiin hadda way la qabsadeen. galaaskana lagu cabaa, galaaska markii lagu cabaa straw ku jira ma iga diidaan, anna waa ku siiyaa. hadayba ku cabayaan maxaa ku diidaa intaa la qabtaa xandhaa caba ka dharga. galaaska caadiga laakiin markii lagu soo waxaa lagu leeyahay hooy sonkor ma lahan, hooy waxaa ka dhadhamaayo. hadda saan markuu yahay laakiin waa la qiyaanay. kadib alxamdulilah guriga iska soo uuminay maadaama malaay iyo shiirkiisa waa iska garanaysiin guriga dhan oo isla qabsanaa bahalka shiirkiisa kulaalka. anagoo guriga iska soo uuminay quraana iska soo shitay. hadda waxaan rabaa xilligan 7 saac bar inaan ilmaha soo seexiyo. qolkooda hadda usoo diyaariyay xilligan adiga 8 saac wili lama gaarin. way seexseexdeen mintay jijiifeenan casariyahana uga soo tuuray. haddaa ka heshaan waa iisoo sheegaysaa mara idin soo gelinaya. jibsigan sidaa u kariyay, cheese ku jiro, ovenkan soo geliyay. marka hore barandhada ee fryagan kusoo kariyay, kadib aan kasoo bixiyay ee fry baan intaan dhandhanaaniyay oon cheese ku daray. dhaladana la geliyay hadda uu ku jiro baa ovenka xoogaha yar geliyay suu isku dhexgalo waxaas dhacankaas cheesekaasna ugu soo dhalaalo. waa cunto caafimaad leh, ilmahana u roon kula korinayo. marka hala soo tijaabiyo mar jawiga loo bedelo ilmaha insha Allah. sidaan quruxda badan oo kusoo baxay lagama sheekeyn karo. casariyaheena sidaan uu ahaa maanta, Allahumma baarik. kadib hadda markaan casariyaheena iska soo meeshaana hadda waxaan bilaabaynaa casho karis. casho fududaan soo kariyay baagar. ilmihii waa soo casheen alxamdulilah, waa la seexseexday. xilligan hadda waa 1 saac iyo 40 habeenimo. meeshaana aniga waxaan soo qaadanayaa waqti oo me time ah. youtube-kayga halkaan daawanaya. qofka ugu horeeyo la rabo inuu isdhiirigeliyo ama istaageero waa adiga. marka videogan sidaan quruxda badan uu kusoo dhamaaday. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fi amaanillah. bye.